kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbood naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub in ka badan 4 diyaaradood oo waday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska gorgor ayay dawladda federaalka ee Soomaaliya maanta ka dejisay deegaanka Raaskambuuni oo ka tirsan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kale waxaa la sheegayaa in saacadaha inuu soo aadan diyaarado kaleeto oo wada saanad ciidan ay tagi doonaan deegaanka Raaskambuuni dawladda federaalka ayaa la sheegay in maalmaha ugu soo aadan duulimaadyo toosa oo ciidamo iyo sidoo kale saanad ciidan wada inay ka dejin doonto deegaanka Raaskambuuni dhowr kun oo askari ayaa la filayaa in maalmaha ugu soo aadan dawladdu ay geyn doonto deegaanka Raaskambuuni horay ay u sii joogeen kumanaan kun oo askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan gorgor iyo sidoo kale booliska gaarka ee Haramcad isla sidaas la mid ah Axmed Maxamed Islaam yaa isagana ciidamo ku sii taadgureynaya deegaanka Raaskambuuni wararka naga soo gaaraya saacadii la soo dhaafay degmada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in labadii maalin ee ugu dambeysay Axmed Maxamed Islaam uu geeyay deegaanka Gudhaa oo 60 kilomitir u jira deegaanka Raaskambuuni boqolaal ciidan oo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland isla markaana qalabaysan oo wata hubka noocyadiisa kala duwan maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in diyaaradihii shalay iyo maanta ka degayay deegaanka Raaskambuuni ay risaasayn xoogan ay la kulmeen isla markaana lidka diyaaradaha loo adeegsaday si dirqeena ay kaga badbaadeen ciidanka daraawiishta Jubbaland ee ku sugan deegaanadaasi waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa isdiidooyinka siyaasadeed ee Axmed Maxamed Islaam Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada iska soo horjeeda dhaqaaqyada ka socda deegaanka Raaskambuuni abaabulka ciidan ee Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale dawladda federaalkuba ay ka wada deegaankaasi waxa ka dhalan kara baaqa ka soo baxaya beesha caalamka iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan deegaanka Jubbada Hoose ama gobolka Jubbada Hoose oo cabasho ka muujinaya ciidamadaasi iska soo horjeeda isla markaana aad uga walacsan dagaal xoogan oo ka dhax qarxa ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa muuqaalkan ku dul istaagi doona haddii aan leeyno soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay in ka badan 4 diyaaradood oo waday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta ka soo degay deegaanka Raaskambuuni dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalayto heshiis la saxiixatay shirkadaha diyaaradaha ee dalka Soomaaliya ka howlgala waxayna ku heshiiyeen in 4 diyaaradood maalin walba dawladda federaalka la siiyo oo ciidamadeeda iyo qalabkeedaba ay ku qaadato 4 diyaaradood maanta waa soo degeen qayb kaleeto oo ciidamada cirka ay leeyihiin diyaaradaha ciidamada cirka ay leeyihiin iyagana qalab bay soo wadaan oo saacadaha soo socda ku soo wajahan deegaanka Raaskambuuni diyaaradahan hadda dhowr boqol oo askari bay keeneen 4 laakiin duulimaadyada maanta bilowday ee dadgureynta ciidamada waxa la sheegayaa in ka badan 3,000 oo askari in maalmaha ugu soo aadan dawladdu ay keeni doonto deegaanka Raaskambuuni iyadoo dhowr kun oo kalena ciidanana halkaasi ay sii joogeen inta bas ma aha ciidanka militariga bas ma aha kumaandooska gorgor kaliya ma aha Haramcad baa garab socota oo qayb ka ah howlgalkan iyo ciidamadan halkan la keenay ciidamada cirka ayaa qayb ka ciidamada badda ayaa qayb ka oo dawladdu hadda qaybihii waliba ugu horeeyay cirka iyo kuwa baddaba ay keentay deegaanka Raaskambuuni oo deegaan xeebeed ah saldhigga ciidamada cirka Soomaaliya ugu weyn ayaana halkan laga aasaasaya xilligii kacaankeena dabcan waxa la yidhi saldhigga ugu weyn baa halkan ku yaala ciidamada cirka markii la yiraahdo saldhigyada ugu waaweyn buu kamid ah saldhigga halkan ku yaala dawladdu dib ayay boorka uga jaftay ciidamadii cirka ayaana halkan lagu soo diyaariyo waliba diyaaradahoodii baa la keeno waxa la yidhi hadda si joogta waxa halkan uga duuli doono 4 diyaaradood oo diyaar ku noqon doono saldhiggan oo iyagu ku sii sugnaan doono oo aan meel la u dhaqaaqayn micnaha halkan hoy u noqon doonta oo ciidamada cirku ay si ku meel gaar ah u sii haysan doonaan dabcan inta la soo badinayo ciidamadan la soo daadgureynaya dawladda federaalku ay soo daadgureynayso ee ay keenayso deegaankan Badhaadhe amaandhan ee Raaskambuuni waxa ay madaxda dawladdu sheegeen in howlgalgalladu markay soo dhamaadaan daadgureynta ciidamadu howlgallo ay bilaabi doonaan oo la isku furi doono Badhaadhe iyo Kismaayo iyo gobolkan Jubbada Hoose oo Kismaayo iyo laga haya kaliya meesha la yiraahdo Afmadow oo degmooyinka kale ay maqan yihiin in markaas ciidankan ay isku furi doonaan oo gabi ahaanba kooxdan ay ka taqalusi doonaan ummadda Soomaaliyeed kala go'doomisay ee dhibaatada ku haysa
dowladda marka bayaankeeda iyo go-aankeeda sidaas bay ku caddaysay. saraakiisha ciidanka halkaa la keenayna waxay sheegeen iyagu inaysan Axmed Madoobe duulaan ku ahayn, isla markaana loo keenay howlgal ka dhana kooxda khawaarijta, aysan aqbalaynin cid walba oo Axmed Madoobe ku duula tiraahda inay iyagu ay siiyeen ciidan Soomaaliyeed ay yihiin, ciidanka daraawiishtan aysan dagaal la gelaynin, isla markaana uu yahay qorshahooda iyo amarka la soo siiyey in ay la dagaalamaan kooxda khawaarijta ee dhulkan Jubbada Hoose iyo guud ahaanba Jubbaland ragaadisay ee State House ka dhigatay. Axmed Maxamed Islaam arrintaasi uma muuqato. labadii maalin ee ugu dambeysay ciidamo soo daadgurayay, boqolaal askari uu iskugu keenay sida wararka Kismaayo goordhow naga soo gaaray ay sheegayaan magaalada Gudhaa oo weliba hub wuxuu hayay ee bakhaarada ugu jiray buu u furay oo wuxuu iskugu keenay Gudhaa 60 kilomitir bay Raaskambooni u jirta deegaanka Gudhaa. halkaas buuna ku diyaar garoobaya oo uu rabaa inuu duulaan ballaaran uu ku qaado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanka Raaskambooni jooga. ciidamo horay u soo diray Axmed Maxamed Islaam oo dhowr boqol oo askari tiradooda lagu sheegay 300 iyo ka dheeri lagu sheegay. ciidankaasi uu diray doomuhu ku diray oo xilligii ugu horeysay ciidanka halka laga soo dajiyay ayuu ciidamo diray wuxuu yiri ka gaara oo Raaskambooni aysan qabsanin, la dagaalama inta yar ay joogtaa. balse ciidankaas dhammaantood waxay ku biireen ciidankii dowladda ay halkaasi keentay. maalmihii ugu dambeeyayna waa kan muuqaaladooda aan idinla wadaagnay baraha bulshadana in badan oo idinka ka mid ah waad ku aragteen. ciidankaasi marka dhammaantood way isdhiibeen. Axmed Maxamed Islaam marka wuxuu rabaa inuu Gudhaa ku diyaariyo. Gudhaa markuu ku diyaariyo waa 60 kilomitir, laakiin dhulka lama mari kare, baddu marka la gelinaya. badda markuu geliyo inuu wasiiro ay hor kacaan ciidankaas oo dagaalkaba hore laga geliyo si markaasi aysan isku wadhiibinba. dhanka kale to waxaa la jaray isgaarsiintii oo weliba badhaadha laga xukumay oo waxay wararku sheegayaan in Axmed Maxamed Islaam uu nimanka khawaarijta badhaadha haysta uu lacag siiyey una yidhaahteenada ka gooya, isagoo markaasi uga gol leh in ciidankiisa daraawiishta aan xiriir lala soo samaynin oo ciidanka dowladdu aysan markaasi telefoon kula soo ama ay la soo xiriirin oo markaasi wax xiriir uusan dhaxmarin. sidoo kale to ciidamadii isdhiibahayay waxaa qayb weyn ka qaadanaya xagga xiriirka oo saraakiisha markii lambarkooda la helo waa lala xiriirayo, waxaa la dhahayaa halkaas soo mara, halkaas soo mara, halkaa ka soo leexda, halkaa baan idin istaagaynaa baa la dhahayay. marka hadda way ku adkaanaysaa ciidanka daraawiishta Jubbaland ee doonaya inay ku biiraan ciidanka dowladda inay ku biiraan, aad bay u adkaanaysaa. dabcan haddii ay noqoto inay ku biiraan xilliyada markaasi dagaalka la wada galo oo markaasi weerar uu qaada dhaho oo ciidanku ay isku muuqdaan ayaa suurtagal ah inay qoriga taagaan oo ay ciidanka markaasi sidaa ugu dusaan. laakiin hadda waxaa ka soo xidhmay jaaniskii waagii hore ay haysteen ciidanka daraawiishta Jubbaland ee ahaa inay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanka Raaskambooni ku sugan ay la soo xidhiidhaan oo ay la soo hadlaan oo ay u sheegaan mowqifkooda iyo halka weliba ay marahayaan. Axmed Maxamed Islaam marka anteenadiina waa gooyey, Gudhaa buu ciidanka ku diyaariyey, hubkoodina halkaa uu uga geeyo. weliba xalay waxaa la qaaday baa la yidhi in ka badan 50 dhigshike ayaa doomo la saaray oo la geeyey deegaankan Gudhaa oo markaasi 60 kilomitir sidaa hore bay idinku sheegay u jira deegaanka Raaskambooni ee ciidanka dowladda ay gacanta ku hayaan. dhaqdhaqaaqyaa socda, abaabul xooggan buu wadaa Axmed Maxamed Islaam. dadka shacabka deegaankaasi degan walaac bay ka muujinayaan oo waxaa la leeyahay dagaalkan uu Axmed soo abaabulayo, ciidankan uu soo abaabulayo iyo ciidanka dowladdu ay halka kusoo daadguraynayso annaga ayuuna infakti garayn doona, micnaha saamayn ugu yeelan doonaa oo dhibaato noo geysan doonaa. walow hadda naftirkeeda saamaynteedu ay muuqato weliba Axmed Maxamed Islaam uu gebi ahaanba joojiyey doomihii becshirada iyo adeega kala duwan u qaadi jiray shacabka ku dhaqan deegaanka Raaskambooni iyo sidoo kale to agagaarkeedaba oo Kismaayo ka bixi jiray. gebi ahaanna uu yiri wax ganacsiya iyo wax alaaba oo halkaa mari karta oo dadka gaari karta oo dhanka u bixi karta ma jiro, isagoo markaasi uga gol leh inuu go'doomiyo ciidanka dowladda halkaasi ay keentay. dhanka kale to waxa ay sheegayaan maamulka Axmed Madoobe inay maanta diyaaradihii soo degayay ay duqeeyeen oo lidka diyaaradaha ay ku garaaceen oo risaas badan ay ku rideen ayna si dirqi uga badbaaday. isla sidaas la mid ah shalayna waxay sheegeen in diyaarad degi rabtay ay xabadeeyeen kadibna ay carartay oo lidka diyaaradaha lagu garaacay, hubyaal lagu garaacay, kadibna ay dhinac kale tahay Kenya weliba xuduudda Kenya ay ka soo wareegatay oo kadib ay sidaas ku tagtay. waxay digniin u direen diyaaradaha shirkadaha diyaaradaha leh, waxay u sheegeen inaysan diyaarad halkaasi ka soo degi karin, balse shirkadaha diyaaradaha dhag jalaq uma aysan siinin
oo ciidanka dawladdu maanta waxay shirkaduhu maanta waxay bilaabeen daadguraynta ciidamada oo wakaa 4 diyaaradood ay maanta imaadeen deegaanka Raskabuni ay ka soo degeen taasi ayaa meesha ka saaraysa in deegaankaasi Axmed Madoobe uusan wax saameyn ku lahayn oo ciidankiisu aysan u dhaweyn been abuurna ay tahay risaasaynta iyo soo kale duqeynta ay sheegeen ee lagu baahiyay TV-ga Jubbaland ee Axmed Maxamed Islaam si kastaba dhaqaaqya socda labada dhinacba abaabul bay wadaan waynu eegi doonaa halka ay ku dambayso iyo xaaladda sida ay noqoto